السلام عليكم قرابة وسلامتهن ميل والباء joogtaan kusoo dhawaada beertayda videoga maanta wuxuu ku saabsan yahay qarahaanaytan ana qaladka iska leh so insha Allah waxa aan sameeynaayo I hope it works out waa arka dad badan oo ma arkino qarahooda meelo badan ee korkoreen qarihiyo soo laalaado I know qarihi uu culus yahay so wax kala laga markay soo baxaan wax kala aan isticmaali doonaa sida aan u celiyo culeyskiisi. So anyways, meeshaanayta markaan qaraha ku beerayo I think I posted YouTube video linkiga hoos aan igu soo qoraya insha Allah. Marka videogaas aan fiirsaday hadeertaan marka arko sida qarihi u baxayaan markaas wallahi waxaan ka fikiraa I should have kicked myself because kama sii fikirin like how qaraha sida u baxayaan iyo faafka ay sameynayaan. So qaladka ana iska leh hooyo shalay wadiis markaas waxa dhahday horta na qarihi halkee ku beertay kaas waxaan dhahay meeshaas wareegaas birtaan aan ku hoos beeray kaas waxa dhahday ma ogtahay horta qarihi inuu faafaayo kulli isdhexgalgalayaan wallahi waa runteed hadeertaana aan meeshaanayta soo istaagay markaas waxaan arkay qarihi iyo isku faafay wallahi so caleemihii aan hadeertaan kala saaray something new aan rab inaan tijaabiyo waxay tahay qarihi in ay ma arkino meel ay koraan vining wax la dhaho inay noqdaan insha Allah rooba soo socda please let me finish this video. So anyways waxa hadeertaan isku dayoyaa jawaan bilaabay xargahaanayte waan isoo dhaweynaya insha Allah qara kasta wuxuu leeyahay arano gacan oo tilmaami kartaa waxay isku wareejinayaan sidaas ay isku celinayaan markay meelaha ay korayaan mise markay wax kale ay caleemo kale markay rabaan inay ku dhagaan gacantooda yiriiska ku wareejinayaan meeshaas ku dhaganaanayaan. So it's perfect haddii ay helaan meel ay ma arkino ay koraan especially this system wuxuu ku fiican yahay haddii oo boos weyn aan helin oo laakiin 100 qaro aan camal ina beerin haddii oo 2 qaro camal aad ina beeritid oo boos ay ku faxaan aan haysanin waxa sameyn kartaa this vining system. Hadeerta aniga waxa isticmaalooya xarigaana isticmaalooya this twine it's natural wire. So anyways xargahaanayta waa qaadaya hadeertaan planting hoostiisa meeshuu salki oo carradu iskala imaanayaan xariga ku xiraya kabacdi ama arkino birtaana rabana ka soo laalaadi insha Allah caleemaha markay korayaan kor ay u sii kori doonaan hadeertaan waxa laga rabaa inaan siiyo boos ee ma arkino caleemihii ay ku faxaan meesha ma arkino si fiican ay u baxaan dhulka hadeertaan waa ku dayn kara aniga meeshoodana waa iskaga faxi karaan qaarkood xargahaanayt uma isticmaali dooni waa iska daynaya sida meelaha ugu faxaan sida u aragno mid ka fiicnaan lahayd midka xariga aan ku xirxiray kor sida u koraan mise ku dhulku ku faxay qarahooda ku weynaan doonaan. So a little bit experiment insha Allah waxa aan xasuusan doonaa noqonaysa next year markii aan qarahaanayt aan noocaan yaashan aan bilaabi doono insha Allah. So anyways waxaan niga ilooba amaleena qarayaashaanayt kulli hadda inta igu beeran especially kuwaanayt meeshan gadaasheeda yaalan kulli guriga ana ku beeray mirihi markay weynaadeen banaanka aan ku soo beeray. So wari anigu dilin qaraabo let's fix this problem aniga aan sameeyo.
so waxaan rabaa inaan tuso aniiso dhaweeyo sida aan xargaha ugu xiray. For example, kan meeshaaneta hoose aan xariga ku xiray, xariga dhin jabkiisa kala waa kana, markaasaan waxaan qaaday aan kaasa ku wareejiyay markaa xarigii sida ay culeyskeedii inay kor ay isku haysato. kabacdi waxaan sameeyay xarigii kor u kacay, kabacdi halkaas ka soo laalaadiyay xarigii. waxaan doonayaa insha Allah inay birahaneet ay kaligood ay ka soo laalaadi karaan. This is an experiment laga yaabo inay ka soo laalaadin, laakiin maalin walba insha Allah ana imaanayo sidaan u caawiyo plants kaneete, because markay wax korayaan waxay isticmaalayaan gacmaan dhooya, but I don't know what to call this, gacmo yariis. xarig aan qaadaya kabacdi waxa ku caawinaya xarig inay ku dhagaan. For example, kan camal, I don't know if you can see this, they're very very fragile. hal gacan kuma sameyn kari, laakiin way jeedin waxay ku dhagaan kama foqaan. So insha Allah ana imaanaya kabacdi waxa ka caawinaya inay isku wareejiyaan meeshaan sidaan camal, kabacdi dhac sidaas camal ugu dhagayaan. maasha Allah, kan waa ku dhajiyay, kaas kuma dhajinin xarig, kaas waa ku dhajiyay xarig, kaas birtu zaid ugu dhow yahay, koo kaleeto birtu zaid ugu dhow yahay, koo kaleeto halkaanu birtu zaid ugu dhow yahay. kuwaanayta xariga oo dheer kama taagan, birta le kula xiray sida ma arkino kor markay u sii kacayaan. ayagana waa imaan doona insha Allah, waxaan ka caawin doonaa inay ma arkino isku wareejiyaan gacmahooda isticmaalaan birihii mise xargaha ay koraan. waxa ii soo haray qarahaanayta, waxaan u ogolaan doonaa insha Allah asagana inuu meeshaanayta uu ku faxo. hadduu cooska dhinaciisa uu soo aadayna ha soo aado. kanna waxaan u ogolaanayaa insha Allah in asagana uu soo faxo, uu iska soo baxo meeshaanayta. kanna dhinacan ku beeran dhinaca xariga uu saaray aan kula dhajiya birta sida u koraan. waan u jeedin caleentaan dheerna oo iska daayay sida ayadana u soo faxdo. So meeshaanayta hadarta sidaan u eg tahay. waxaan actually rabay in aan geedaanayta oo cadaanka oo shabaq in aan ku xirxiro sida ma arkino ay u koraan, laakiin it's too late. waxaa fiicnaan lahayd kan inaan isticmaalo markii plantska ay yaryaraayeen, sida meeshaanayta daaha camal ugu xiri lahay, markaas wax dhan ay wada korkori lahaayeen. This is for next year insha Allah, waan tusi doonaa. For this year sheekadaas meeshaan maraysaa hay qaraabo. Okay qaraabo, meeshaan ku soo koobaya roobkii hadartaan ugu soo batay insha Allah. Facebook page kayga, TikTok, Instagram, kulligood waxaa la dhahaa beertayda Somali Gardener. xagga aan update niga soo saari doonaa insha Allah. sawir aad shidsaa iyo videoyaal maybe sida meeshaanayta aan u galay inay shaqeynayso in kaleeto. videoga halkaan ku soo koobaya. mac salaama.